بسم الله الرحمن الرحيم. هجان كدقن كبالها جلمدك ورمرتيات صدّن كأكتوبر 2018 وحامانت أو تاريخ تصدّن كأكتوبر 2018 شر إسكويمت هجان كدقن كبالها جلمدك أو سوين أفلنقيه هلك أي مريان لذا معمول سد جلمدك كدب شركة دبوشيسين تجلمدك السوق بجواليه 8 سبتمبر كاس أو كاس قريب جلين إن كبدان تضرب بقول إلى 20 إرجو ugu horeyn hogaanka dhaqanka galmudug wuxuu u mahad celinayaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug doorka ay ka qaateen shirweynihii dib u heshiisiinta ee reer galmudug oo kaas oo ay ka soo baxday in mar kale dib loo soo dhiso galmudug cusub oo loo dhan yahay maadaama ay galmudugtii hore ay kala qaybsantay go'aanka hogaanka dhaqanka galmudug waxaan isla garanay in aan ugu baaqno dawladda federaalka iyo culimada ahlu sunna wal jamaa in ay ka heshiyaan khilaafaadka ka soo dhex usboonaaday waxaan sidoo kale xusuusinaynaa in dawladda federaalka Soomaaliya iyo culimada ahlu sunna wal jamaa midkoodna sharci iyo awood u lahayn in 35 xildhibaan oo ka mid ka ah 89 xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug oo sheegay Sheekh Maxamed Shaakir in ahlu sunna wal jamaa kullihiis dawladda federaalka in ay iyagu soo xulaan in aysan taas midkoodna sharci iyo xaq u lahayn hogaanka dhaqanka waxay dawladda federaalka Soomaaliya iyo culimada ahlu sunna wal jamaa uga digayaan in ay isku dayaan in ay si sharci darro loo kordhiyo tirada golaha wakiilada galmudug si aan loogu xadgudbin awood qaybsiga beelaha galmudug waxaan dawladda federaalka ugu baaqaynaa in ay si degdeg ah u howlgeliso guddiga farsamada maamul dhisidda dawlad goboleedka galmudug si ay galmudug uga baxdo xaaladda adag ee ay ku sugneed sanadihii la soo dhaafay ugu dambeyn hogaanka dhaqanku wuxuu hoosta ka xariiqayaa in ay mas'uuliyadooda tahay dib u dhiska galmudug iyo xaqiijinta horumarka bulshada galmudug ku wada nool deegaanka galmudug dhammaad. Assalaamu calaykum.